الله أكبر الله أكبر نبيك كسليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي شرفتا قيمها هي قايها بدن مقالدني أما تولدني بدر وناق ما أنت نوجيمي أد بنسور دوينيا مدحض شرفتا له أنيقو كلاقات قادين أو متكستبان كو سلام أيوه تايتل كيسة دولدنا الدحى iyo dawladdeena hoosaba dhamaantood waan salaamaya kuna soo dhawaada waa markii labaad imika dhowr bilood aynu isku nimaadno dhagax dhigis mashaariic ay runtii kii horena waxa maalgeliyay qurba jooga deegaankan maantana nin dad Kuwait jooga waliba nin Caraba oo ka soo shaqeeyay ninkan deegaankan Cabdilaahi Dhagacse ayaan maanta u joognaa dhagax dhigi MCH kaasi waa mid farxad leh taas lafteedu waxay yididiilo u tahay iyo rajo weyn inay dawladdeena lafteedu ay markad ay ka soo qayb qaadan doonto baadama ay nagala qayb galayaan dhagax dhigiskii mashaariic kale oo dad kale fuliyeen waxaan rajaynaynaa marka xiga inay dawladda lafteedu dee dhagax dhig iyaguna fulinayaan inagala qayb qaataan taasaan ku rajo weynahay cabasho maaha dawladdu waa dawladdeedii madaxweynaha ilaa ka ugu hooseeya waa adeegihii ummadda annaguna dadkaas umaan kala simanahay waxaan rajaynaynaa deegaankana waa deegaan ballaaran degmada Sabawanaag ay Badurwaa ka tirsan tahay waa degmada ugu ballaaran gobolka Maroodijeex haddana adeegyadii dawladda way ka aradantay waxaan rajaynaynaa inkastoo aanu xoog uga qayb qaadnay dawladda oo haddaan tusaale idin siiyo qoys ahaan Dr. Sharmaarke Maxamed Magan wuxuu ka mid yahay hormoodka dawladda wasaaradda caafimaadka kala talinaya cudurkan aafada ah ee COVID-19 Mareykan buu joogaa Dr. Sere Maxamed Magan oo iga dambaysa waxay agaasimo waaxidkii wasaaradda caafimaadka waa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenkii baa inala jooga anigu Cabdiraxmaan Maxamed Magana mucaarad baan ahay walaakiin waxaan ahay mucaarad wax dhisaya dawladda waan ku faraxsanahay waxay qabtaan wixii dhaliilana waan sheegayaa waxaan leeyahay oo mar labaad ku celinayaa deegaanadani waa deegaano la ilaaway ummadana ummad fara badan weeye cashuur bay bixiyaan xaq bay u leeyihiin wixii waajiba ay dawladoodu ku leedahay dawladda kama soo horjeedaan walaakiin waxay doonayaan dawladoodu in ay la dareento waxay u baahan yihiin haddii sinaan baan doonaynaa degmooyinka waa in la simaa haddii dawladdu galbeed u badato waa mashkilad weyn xaq baan ku leenahay marka aniga oon iga hayn cabasho haddana waajib baan ku leenahay waxaan rajaynayaa in marka xiga aan dhagax dhig dawladdu fulinaysa ka soo qayb qaadano